السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد ولا لي الأمان وإذن سلام يا مير بعد جوكتان وحن إذن الله مر كوات مر لواد مر سدحاد مر أفراد به رمضان كريم مير بعد جوكتان. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله إنك أقبل رمضانك. الله إنك ديكو كوا ملايين maaragtay maalin waliba maalmaha ramadaanka maalin walba oo kamid ah laga xoreynayo naarta jahannamo. Allah nagama dhigo kuwaas oo naxariista Ilaahay ay haleeshay. maanta waxaan soo qaadanaynaa xadiis aad iyo aad u bishaaro badan. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay ummadeyda bisha ramadaan 5 shay ayaa lagu khasisay oo ummadii hore aan la siinin. wuxuu dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ummadeyda waxaa lagu khaas yeelo dhaa bisha ramadaan 5 shay oo ummadii hore la siinin. waxaa kamid ah dhahay nabiga sallam habeenka ugu horeysa ee bisha ramadaan inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala adoomihiisa saa'imiinta maaragtay soomayo oo maaragtay aragti naxariis leh oo kusoo fiirinayo. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay qofkii oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aragti naxariis leh oo ku fiiro naxariis leh oo ku fiiriyo inuusan cadaabaynin mar dambo noloshiisa. tan labaad nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay tan labaadna waxa waaye nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu maaragtay uduga ama raaixada ka soo baxaysa qofka sooman afkiisa in Ilaahay agtiisa ay ka fadli badan tahay miskiga caraftiisa inay ka caraf badan tahay ay ka udgoon badan tahay. raaixada qofka sooman afkiisa ka soo baxaysa inay ka udug badan tahay miskiga Ilaahay agtiisa. tan saddexaad nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay inay habeen iyo maalinbo ee malaa'igta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala adoomaha sooman inay dambi dhaaf Allah subxaanahu wa ta'ala u weydiinayso Allahumma ighfir lahu warhamhu inay maaragtay dambi dhaaf malaa'igta u weydiinayso. tan afaraad nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay tan afaraadna waxa waaye dhahay inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu amrayo jannadiisa inay isku qurxiso adoomihiisa wanaagsan ee suuban ee sooman bisha ramadaan inay isku qurxiso. marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waxay mudan yihiin adoomiyga inay mar dhow ee ka soo baxaan adduunyada iyo dhibkeeda iyo rafaadkeeda ay imaadaan daarteeda daarul karaama ee jannada ah. shanaad nabiga sallallahu alayhi wasallam tan shanaadna wuxuu dhahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala habeenka ugu dambeysa ee bisha ramadaan inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo u dambi dhaafayo adoomihiisa ee bisha ramadaan oo dhan soo soomnaay ee maaragtay abaalmar inuu uga dhigayo dambi dhaafkiisa. marka waxaa hadlay nin saxaabi oo saxaabadii Nabi Maxamed kamid ah oo majliska fadhiyay wuxuu dhahay Ilaahay rasuulkiisa habeenkaas ma habeenka Laylatul Qadarka. markaas oo dhahay maya habeenka Laylatul Qadarka ma ahan oo dhahay ma waadan arkin oo dhahay dadka oo caamiliinta oo cumaasha oo shaqaalaha ah markay shaqadooda gutaan in ujuuradooda farta laga saarayo oo shaqadoodii markay gutaan in maaragtay la siinayo ujuradoodii iyo waxa ay shaqaysteen in la siinayo mushaaraadkooda la siinayo bisha markay dhamaato. marka wuxuu dhahay sidaa darteed oo sidaas oo kale ayaa saa'imiintii bisha ramadaan soomnaay oo dhan waxa abaalgud looga dhigaya ay mushaar iyo ujuro looga dhigaya dambi dhaaf. qofkii Ilaahay dambi dhaafkiisa helaa oo naxariistiisa helaa wax ka maqan ma lahan. dhammaan walaalayaal waa idin salaamaya meel walba aad joogtaan. bisha ramadaan kuwa ka faa'iideysta khayraadkeeda Allah inaga dhigo ugu yaraan calal aqal kuwa maaragtay cibaadooyinka wax kala imaada Allah inaga dhigo oo aan ku qadin bishaan khayraadkeeda. maxaa yeelay nabiga sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamid ah isagoo mimbarkii masaajidkiisa oo korayo ayuu talaabtii koowaad markuu qaaday wuxuu yiraahday aamiin. haddana talaabtii labaad wuxuu yiraahday aamiin. talaabtii saddexaadna aamiin. saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam way la yaabeen waxay leeyihiin Ilaahay rasuulkiisa ficilkan kugumaan arki jirine maxaa waaye. markaas wuxuu ku yiraahday malakul jibriil ayaa inkaartamay 3 jeer anna aamiin ayaan u dhahay. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiraahday malakul jibriil ayaa wuxuu yiraahday nabi allow qofkii
bishii ramadaan haleelo oo aan dembi dhaafkeedana aan helin, naarta allah ku fogeeyo. Markaasuu yiraahday aamiin. wuxuu kaloo yiraahday malakul jibriil, nabi allow qofkii agtaada magacaada agtiisa lagu sheego oo aan kugu salinin nabiga sallallahu alayhi wasallam magaciisa marba maqashaan ku saliya oo aan kugu salinin naarta allah ku fogeeyo, aamiin ayuu yiraahday. markii saddexaadna wuxuu yiraahday qofkii labadiisa waalid ama mid kamid ah haleelo oo aan dembi dhaafkoodii jannada ku gelin, naarta allah ku fogeeyo, aamiin ayuu yiraahday. marka waa 3 inkaar oo cajiib ah, iska ilaaliya 3daas inkaar. waa 3 inkaar oo malakul jibriilna uu inkaartamaayo, nabi maxamedna oo aamiin uu leeyahay. marka walaalayaal dhammaan waa idin salaamayaa meel walba aad joogtaan. waxaan ilaahay ka baryanaa ramadaanka khayraadkiisa iyo barakaadkiisa iyo naxariistiisa iyo dembi dhaafkiisa inuu ilaahay waafajiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.